السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ahaantiin bakulanti wacan oo wanaagsan halkani waa radio Gedo codka gobolka Gedo muujad rirkeedu yahay 89.1 megahertz kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray warkana waxa idin la socodsiin doono anigoo Cabdullaahi Maxamed Xamuud. qodobada warka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ku wajahan magaalada Dhuusamareeb. sare u kac laga dareemayo sarifka lacagaha qalaadka ee laga isticmaalo degmada Dalow Soomaaliya. ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka dawladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay shakhsiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab. wasiirka wasaaradda tamarta Soomaaliya oo kulamo muhiim ah la yeelatay madax ka socotay hay'adda IOM iyo urur goboleedka IGAD. dawladda Kenya oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasina waxay ahaayeen wararka gudaha. wararka caalamka idinku haynan waxa kamid ah Theresa May oo si kulul u cambaaraysay madaxweyne Trump. intaasi waxay ahaayeen war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray haatan ku soo dhawaada iyagoo fidsan. wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ku wajahan magaalada Dhuusamareeb. warkaasi waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Warsame Cabdi. magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaa maanta ku wajahan wafdi oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye kaas oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho. wasiir Sabriye ayaa horay dhowr maalmood uga sugnaa magaalada Dhuusamareeb isaga oo qayb weyn ka qaatay heshiiskii madaxda ahlu sunna ee ku biiray Galmudug iyo dawladda federaalka isla markaana uu dadaal u galay xalinta dawladda federaalka iyo madaxweynaha Galmudug. ujeedada wafdiga wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ee magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu sheegay in la filayo in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo guddiga qabashada shirka dib u heshiisiinta dadka reer Galmudug. magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa saaki laga dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxaana sidoo kale magaalada Dhuusamareeb ku sugan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. sare u kac laga dareemayo sarifka lacagaha qalaadka ee laga isticmaalo degmada Dalow Soomaaliya waxa warbixintaasi inoo soo diyaariyay Nuruddin Xasan Deeq. degmada Dalow waxay ku taalaa cirifka koonfureed ee dalka gaar ahaan xuduudda kala qaybso Soomaaliya iyo Itoobiya. degmada waxaa laga isticmaalaa lacagaha dollarka iyo lacagta Itoobiyaan ee loo yaqaan birta. sariflayaasha ayaa ka cabanaya lacagaha qalaad ee degmada laga isticmaalo aan fadhin xilli kasta sameeyo isbedelo. lacagta dollarka ayaa laga dareemayaa sare kac aad u weyn taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka danyarta ah iyo suuqyada maciishada ee degmada. qaar ka mid ah sariflayaasha ka shaqeeya degmada ayaa ka warbixiyay waxyaabaha sababay isbedelada sarifka lacagaha qalaad. sarifka waxa waaye waa iska qasaar badan yahay waa iska faa'iido badan yahay. sarifka waxaan ku soo beeray bishii shanaad 2018 sarifkii maalinkii aan soo galayay cashada aad bay u raqisaneed waayada iyada kadib sarifka aad buu u kacay wuxuu tagay $1.38 ka bacdi doolarka annagu hayna ayuu nagu dhacay ka bacdi wuxuu tagay 28 waxa laga yaabaa adiga oo ku qabtay 3800 oo kugu fadhiyay 3800 uu hoos u dhacay doolarka uu tagay 2800 oo waayo markaas boqol ka qasaariyay 900 marka saa daraadeed aad baan waayada iidahayd door cashada iyo noo dhacday kadib waxayaan raasanay wixii aan haysan ayaan soo kabanay alxamdulillah sarafku cashada meel looga malaha mar uu kacayaa mar uu dhacayaa waxa la degan ma sababtoo ah
waqtiga cimilada ayaa isbedelaya aga Maxamed Aadan waxaan ka mid ahay sariflayaasha doolow marka lacagaha sansa u sarifnaa haddana doolarka xoogaa hoos u dhacbaan moodaa inuu yara socdo qabashadu waa $40 alxamdulillaah rabbil caalamiin 40 lagu qabanaya 45.6 ayaa lagu sii bixinayaa kenyaatiga 37 ayaa iyadana alxamdulillaah rabbil caalamiin ayaa lagu qabanaya ilaa 39 lagu sii bixinayaa ama 40 Etoobiyaanka Soomaaliga waxaa lagu qabanayaa 110 baa lagu qabanayaa oo boqolkiiba kun oo Soomaaliya lagu qabanayaa boqolkiiba kun oo Soomaaliga 110 bir baa macnaha yaa xasaraysa Soomaaliga sarreeya marka bixinta Soomaaligana waxa waaye boqolkiiba 60 baa macnaha bir ahaan lagu sii bixinayaa oo boqolkiiba 60 kun oo Soomaaliya la siinaa qofka wato marka saas weeye dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan radio Gedo codka gobolka Gedo ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka dawladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay shakhsiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab warbixin arintaasi ku saabsan waxa ay noo eegaya Cabdinuur Cusmaan Cabdi ciidanka amniga dawladda Soomaaliya oo howlgal ka sameeyay duleedka magaalada Muqdisho dhawaan ayaa waxay ku soo qabteen laba ruux oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab iyo hubkii ay wateen waxaana qayb ka ah ruux kale oo shaqaale ka ah shirkad ganacsi war qoraal ah oo lagu soo daabacay barta Twitter ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka amniga ay soo qabteen shakhsi u shaqeeya shirkad ganacsi sidoo kale NISA ayaa tilmaantay in ninkaasi lagu tuhunsan yahay u sahlida isu gudbiska dhaqaalaha shabakada xaalad ama daraka waday magaalada Muqdisho aad buu mahadsan yahay Cabdinuur wasiirka wasaaradda tamarta Soomaaliya oo kulmo muhiim ah la yeelatay madax ka kala socotay hay'adda IOM iyo waliba urur goboleedka IGAD Maxamed Maxamuud Cabdi ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya wasiiradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Mohamed Sheekh ayaa shalay xafiiskeeda ku qaabishay wafdi ka socda hay'adda IOM iyo urur goboleedka IGAD waxayna ka wada hadleen fulinta mashaariicda lagu dhisayo xarumaha wasaaradda mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa ka wada arrimaystay hirgelinta mashaariicda lagu dayactirayo xarumaha wasaaradda tamarta oo deegaamaysan doonto xaruntii hore ee wakaaladda biyaha xamar ee degmada Wadajir hay'adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa wasaaradda ka taageertay dhismaha xarunta shaybaar biyaha iyo goobo kale waxaana si gaar ah looga hadlay dhismaha xarunta wasaaradda kaas oo dhawaan bilaaban doono sida uu qorshaha yahay dhaqaalaha mashaariicda ayaa waxaa bixinaya bangiga horumarinta Afrika iyo urur goboleedka IGAD iyadoo ay hay'adda socdaalka adduunka ee IOM ay fulintan ka gacan siinayso wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kulankan waxaa goobjoog ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda Ismaan Libaax Ibrahim iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda iyo saraakiil ka kala socota hay'adda IOM iyo IGAD aad buu u mahadsan yahay wariyaheeni Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan dawladda Kenya oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsan al-shabaab warbixintaasi waxaa inoo diyaariyay Abdifitaax Abuukar Cabdille war qoraal oo ka soo baxay ciidamada booliska dalka Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada ay ku dileen 3 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab xilli ay ku sugnaayeen deegaanka Kayunga ee xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya qoraalka ayaa lagu sheegay in xilliga la dilayay xubnaha ay miina ku aasiyeen deegaanka Kayunga qaraxaas oo ay doonayeen inay ku waxyeelayaan ciidamada ilaalada xuduudka waxaana israsaasayn dhaxmartay ciidamada iyo ragga ka tirsan al-shabaab taasoo sababtay dhaawac laba ka mid ah ciidamada booliska Kenya sidoo kale booliska Kenya ayaa sheegay inay hayeen xog ku saabsan xubnaha ka tirsan al-shabaab ee ku sugnaa deegaanka Kayunga sidoo kale ay weli ku raad joogaan xubnaha kale ee ka tirsan ururka al-shabaab dadka deegaanka Kayunga ayay booliska sheegeen inay yihiin kuwa had iyo jeer taageera ururka al-shabaab hase yeeshee ciidamada Kenya ay yihiin kuwa doonaya inay ilaashadaan xuduudkooda isla markaana baacsan doonaan cid kasta oo gacan siisa al-shabaab si kastaba hadalkan ka soo yeeray ciidamada booliska Kenya ayaa imaanaya xilli inta badan deegaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi ay mararka qaar ka dhacaan qaraxyo lala eegta ciidamada booliska Kenya waxaana qaraxyadaas mas'uuliyadooda sheegta al-shabaab haatan dhanka iyo wararka caalamka Theresa May oo si kulul u cambaaraysay madaxweyne Trump ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa cambaaraysay hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu habeen ka tirsan aqalka Congress-ka Mareykanka oo aan ahayn cadaan uu ku yiri dib u laabto
ra-iisul wasaaraha Britain ee xilka kasii degayso ayaa hadalka Trump ku tilmaamtay mid aan la aqbali karin sida ay sheegtay afhayeenka u hadasha Theresa May. madaxweyne Trump waxa uu yiri haweenka asal ahaan ka soo jeedo wadamada baabaa ah oo ay dawladdu ka jirin wuxuuna madaxweynaha hadalkiisa ula jeeday 4 haween oo ka tirsan aqalka Congress-ka Mareykanka oo 3 ka mid ah ay ku dhasheen Mareykanka mid afaraadna ay Mareykan tagtay iyadoo 12 jir ah. hadalka Trump oo cambaarayn kunul caalamka loogu soo jeediyay ayaa lagu tilmaamay inay cunsuri yahay. hadalka cusub ee ka soo yeerayna uu yahay hadallada cunsuriyada ee hore looga bartay mid ka duwan. musharaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ee hadalka Trump ku tilmaamay cunsuriyad halka uu xubinta matalaya xisbiga jamhuuriyadda uu Trump uu ka soo jeedo uu ka gaabsaday iyadoo uu taagan yahay hadalka cunsuriyada ee madaxweyne Trump ayuu subaxnimadii Isniinta haddana Twitterkiisa ku soo qoray inay haweenkaasi raaligelin bixiyaan. haweenka aqalka Congress-ka Mareykanka ee ka tirsan uu weeraray madaxweyne Trump waxay kala yihiin Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley oo ku dhashay Mareykanka iyo Ilhan Omar oo Soomaali ah. Mareykanka qaxootimo ku tagtay iyadoo 12 jir ah. haweenkaasi oo kulligood matalaya xisbiga dimuqraadiga. Mrs. Ocasio-Cortez waxay ku dhalatay Bronx oo New York ka tirsan halka ay ku dhalatay 12 mayl u jirto isbitaalka Queen oo halka uu madaxweyne Trump ku dhashay. Mrs. May ayaa bishii June ra'iisul wasaarnimada Britain iska cashishay kadib markii uu baarlamaanka Ingiriiska uu ka hor istaagay inuu u meel mariyo heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub. laba musharax oo ka soo jeeda xisbiga muxaafid ayaa haatan loolan adag ugu jirto sidii ay u bedeli lahaayeen ra'iisul wasaaraha xilka iska casishay. dhageystayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay war wixii dalkiyo daafaha caalamka inaga soo gaaray. warkan waxaad ka dhageysanaysaan codka gobolka Gedo mujadirkeedu yahay 89.1 magaartis waxaan idin la socodsiinayay anigoo Cabdullaahi Maxamed Xamuud dhanka farsamada waa Maxamed Macalin Aadan cidii warkan u dhaafay waxay dib ugu daalacan karaan barta Facebook aan ku leenahay ama YouTube-ka Radio Gedo intaan warkani war lamid aan ku kulmi doono waxaa idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.